kulankan maanta ka dhacay magaalada Cadaado ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa looga tacsiiyay Allah u naxariistay General Maxamed Roble Jimcaale Goobaale oo shalay ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ammaanduulaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle sare Cabdullaahi Aadan Ciro oo ugu horreyntii goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay taariikhda General Goobaale 1986 waxa uu noqday kabtan ama dhamme sida u taqaanaan sidoo kale 1989 waxa uu qaatay gaashaanle 2011 dowladii uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Cabdiqaasim waxa uu qaatay gaashaanle dhexe sanadkii 2003 waxa uu noqday gaashaanle sare July 2011 waxa uu qaatay darajada General Sareeye Guud. wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Diini iyo Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo madasha ka hadlay ayaa dhankooda ka sheekeeyay inta ay ka garanayeen General Goobaale. waxaan raawirkii inaan ku soo koobo Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen waxaan leenahay cadowga Soomaaliyeed ma dhimane waa noolnahay waana noolaa doonaa annagana nolol ku soo hari doona iyo nolol iyo raaxo wanaagsan adinkana aakhiradiina hoog addoonkiina hoog waan idka adkaa doona insha Allah taala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وما ربما ما ذكت قصم على روا إن ضدك أشوح يغيره إن قبلك حسوستان أيانا الكرم مركا صعب يومنا يومله إن شاء الله تعالى معلنا إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون ugu dambeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi kaas oo sheegay in si dhow ay uga warhayn doonaan xaasaska iyo ilmihii uu ka tagay generaalka insha Allah hadana dowlad Galmudugna waxaan ka qayb qaadan doonaa warqabka carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ehelkiisa uu ka tagay runtii waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeed inay saas oo kale uga qayb qaadan doonto ayadana qaybteeda July waayo waxa dhab ah askariga waxa uu taagan yahay inuu difaacayo waa dalkiisa diintiisa iyo maaragtay dadkiisa marka qofka oo inta difaacayo maalinka uu dhinto ama uu dhaawacmo ma aha in meel cid looga tago ma Maxamed Maxamuud Owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.